maanta mar aan nadiifinayay halka ay biyuhu maraan oo drainka ah waxaan kala kulmay wax runtii aan aad ula yaabay. waxaanba u dhaadhacay noole aanan ka filayn meesha oo isugu jira kuwo ilimo qabataya iyo kuwo kaloobaad arkaysid sida dixray dhuleedka. waxaan raadiyey ama baadigoob ugu jirnaa shifa sidii lagu heli lahaa. maxaa inoogu jira shifa, xaggay ka timaadaa? maantase waxay noqotay inaanba ka soo waranno dhulka hoostiisa waxyaalaha noolayaasha ku jira iyo faa'iidadii khasaaraha inoo leeyihiin. bal u fiirso noolahan, nooca iyo qaababka, dherarka iyo siday u samaysan yihiin oo runtii la yaab kale. mararka qaarkood baa waxaa is leedahay meesha maxay ka qabanayaan oo yaa ku qoodiya, maxay anigu ii taraan maadaama ay gurigayga ay deggan yihiin. maxaa faa'iido noogu jira? ilaan waaba faa'iido bilowgeeda oo noloshuba haddaayan iyagu ahayn aysan dhulka iyo geedaha, dhirta, dhirmiroodka iyo wax kastoo inaga waxna taraya, halka ay cidda qaybta kale ee runtii kaalintooda aanan innaga aysan noo muuqan. laakiinse allihii abuurtay ee iyagaa abuurtay innagana abuurtay u disaangareeyey wax waliba in ay u shaqeeyaan sidii loogu talagalay. nafaqada ay soo deynaya haddaad fiirisid waxaa is leedahay cambar miya, dheeman iyo nafaqo runtii ay ciidda ku sayrinayaan, kadibna ciiddu ay kala furfurayso, nafaqaynayso, maxaa la dhihi jiray dhirtu ay ku baxayso. waa waxaan filaya ama inaan indhahaygu ku arki doono nafaqadatan la soo deynayo isma lahayn. nafaqada markaan raadiyena runtii bini'aadamkana inta uu darsay, baaray, ayuu wuxuuba ka soo saaray iyadiyo ganacsi ah oo uu markaa beeraha iyo loogu talagalay in lagu bacrimiyo. shifa ama caafimaad, fayaqabid, waxa weeyaan meelaha laga helo runtii waa meelaha runtii aanan ka midaysan. waxaad ka helaysaa oo alla subxaana wa tacaala uu calaamadihiisa dhigay meelo innaga aynan ka filayn. bal u fiirso dixrigaana ku jira dhulka hoostiisa, marna isma oranayn in uu faa'iido ii leeyahay, balse waxaad arkaysaa isagiyood waxa uu keeno kadibna maxaan kula annaga dhan aan ka wada faa'iidayno. waa mucjiso loo baahan yahay noolo kasta in runtii lagu mahadiyo allah subxaana wa tacaala, loola dhaqmo xayawaankan ama noolaha kan sidii ugu habboonayd. waa hambo, dhulkay nadiifinayaan, waxay soo celinayaan baalansiga iyo waxyaabo badan oo ciiddaa ka badan. xitaa waxay dawo ama cunto uba yihiin shimbiraha iyo xayawaano kale markay bannaanka u soo baxaan. waqti bay igu qaadatay inaan fiiriyo, derso sida uu u socdo, uu u gelayo meesha ciriiriga ah. runtii wax la yaab leh bay ahayd. waan jeclahay qof kasta inuu ku cibro qaato. marna ma is odhan lahayd dixrigaasi intaa la eg ee sidaa qaabkii yahay, awooddii intaa la eg tahay inuu adiga bini'aadamka ah uu caafimaadkaada qayb ka geysanayo. nimcooyinka alla subxaana wa tacaala uu inagu manaystay ciiddaa ka badan, mana la soo koobi karo. balse bini'aadamka waa annago aan ka mid nahay, aniga kulligeennu waxaanu nahay dad hadda madax adag. haddii ayn keliya cuni lahayn cunnada sidaas alla subxaana wa tacaala inoogu soo diyaariyey ee professionka ama risiqa alla subxaana wa tacaala sidaana loogu soo diyaariyey keliya haddaanu ku ekaan lahayn waxyaabo badan baa inoo hagaagi lahaa.
balse bini aadamka maadaama aanu nahay dad aan naftooda asxaan u samaynayn waxyaabo badanoo waxaan samaynaa nafteeda halligaya waana ta aad ku arkaysid mar kastaba inna leeyahay waa waxaad gamcihiinna ku samaysateen shifaa waxay ka imaanaysaa meelo badan oo innaga aynan ka filayn dixigan qayb buu ka yahay dawadeenna ilaaha naga dhigo kuwii karta nimcooyinka alla subxaana wa tacaala uu inagu manaystay ciidda ka badan maanta waxaan idinla wadaagayaa waxay tahay suuqa ama meesha ama fiilka waxaan kala soo kulmay baan idinla wadaagayaa insha allah waa intaasoo dhammaantay aanu ku cibro qaadana inta aynu dib dambe hawada ugu kulmi doono waxaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo iyo nooli kulanti maca salaama Oh